الله الرحمن الرحيم. halka aad naga daawanaysaan waa Somali Sad barnaamijkiisii Dayaan oo alaabada kaga yimaada magaalada Boston ee carigan dalka Mareykanka. daawadayaal waxa mar labaad marti noogu ah barnaamijka Ali Faisal Dirir. Ali Faisal waxaan ka wareysan doonaa laba qodob oo kaliya. qodob ku saabsan magaalada Boston oo ah doorashooyinka ka dhacay magaalada Boston iyo dareenka ka imanaya qeyladaanta ka imanaysa Soomaaliya siba caasimadeeda magaalada Muqdisho maadaama uu ahaa wasiir ku-xigeenkii wasaaradda maaliyadda runaatina ay ka taagan tahay jahwareer badani in sidii loo maareyn lahaa kharashka ama dakhligii dawladda Soomaaliya. Ali Faisal kusoo dhawow Somali Sad. Assalaamu alaykum. Ali Faisal su'aasha koowaad aan ku weydiinana waxay tahay wax ma nooga sheegi kartaa in doorashooyinka ka dhacay magaalada Boston anagoo og in Soomaalidu markii u horeysay isku raacday inay u codeeyaan hal nin. Bismillahir Rahmanir Rahim. Ma santahay mar hore waxa shirtay barnaamijkan Dayaan Somali Sad. haddaan ka warramo dhinaca doorashooyinka ka dhacay Boston, actually doorashadii tan ugu weyn wahayd mayorka magaalada Boston oo uu ka tagay mayorkii hay 20 sano mayor Marino. waxaa ku isku soo baxay aakhirkii saad ogtahay laba musharax oo ahaa John Connolly iyo Martin Walsh. dhinacaas u sheegtay Soomaalidu waa jirtay in u janjeereen oo Connolly u janjeereen laakiin haddana koox kale oo Soomaaliya weli raacsanay Martin Walsh. anigu waxaan qabaa inay horta ahayd aysan ahayn wax lagu khasaaray oo in labada dhinacba laga arko dad Soomaaliyeed ay muhiim tahay. sababta waxa weeye haddaan kulligan raaci lahayn Connolly waxaa laga yaabi lahaa maanta inaanan haysteen dad noo raacsan Walsh, laakiin nevertheless waxaan maleeyaa guul bay tahay. anigu horta labada nin waxaan arkay laba nin oo laba progressive oo isku siyaasad oo isku xisbi oo wax weyn u dhaxayn, laakiin saa sheegtay Soomaalidu waxay u badatay Connolly baa loo badnaa. haddana waxaa soo baxay Walsh. waxaan qabaa waa win-win situation. Walsh naftigiisu rag Soomaaliya ku xiran oo waxaan qabaa in cadkii Soomaalida insha Allah iyo waxay Soomaalidu ka tabanaysay City of Boston looga soo qaaday. Ali Faisal aad iyo aad ayuu maasan tahay. marka koowaad as Somali Dayaan waxaan rabnaa inaan congratulation niraano mayorka cusub ee magaalada Boston Martin Walsh. su'aasha aan ku soo noqonayaa waxay tahay in dadka Soomaalida badanaa shakhsiyan waxay codeeyeen ama ay badankoodu codeeyeen John Connolly waa la ogyahay taas. dad kale Martin Walsh bay la socdeen, laakiin dadka Soomaalida waxay aaminsan yihiin ama dad badan ay aaminsanayeen in ay u codeynayaan in codkooda la arko. marka arinta iyada ay u codeeyeen dadku in ismuujiyaan oo codkoodii la arko oo siyaasadda ay ku biiraan oo awr ay ku darsadaan maaragtay siyaasadda socota ama si magaalada Boston iyadoo Boston Globe lagu soo qoray arbacadii dhaweyd in ay Soomaalidu maaragtay ay ka maqan yihiin waxay ugu yeedheen corridor of power. marka arinta iyada maxaad ka leedahay? su'aasha ujeedada ka jawaabo Soomaalidu doorashadan si waxay uga qayb qaadatay aysan weligeed doorasho uga qayb qaadan. dhinacaas waxaa ahaa saatiri loo badalo Connolly, laakiin aad iyo aad bay shaqo waana ka shaqeynayeen, volunteers bay ka ahaayeen, waa garab taagnaayeen musharaxiinta. mid walba markuu hadlayo dad Soomaaliya garab taagnaa. hay'adaha Soomaalida imaanayeen, meelaha Soomaalida oo ganacsiga imaanayeen, dadka Soomaalida ay la hadlayeen. dad waxay ku tusaysaa Soomaalida numberkoodii badnaa iyo ka qaybgalka ka qayb galeen iyo la arkay in number loo baahan yahay iyo cod loo baahan Soomaaliya tahay. way noqotay markii ugu horeysay noqotay Soomaalidu force lagu xisaabtamo oo nin kasta oo inuu Boston wax ka noqdo ama state-ka Massachusetts uu yahay cod Soomaalidu cod loo baahan yahay. danta noogu jirta inaan noqono dad meeshii waa meel ka maqno ama ka muuqaalay. haddaan meeshii joogno number fiican ku joogno inaan wax ku leenahay siyaasadda. hadda waxa ugu yeelanayo inaan noqono dad ururiyay oo political participation sameeyay. democracy-ga sideedaba dimuqraadiyadda waxa loo haddaadan ka qayb qaadan siyaasadda, haddaadan ka muuqan oo aadan Soomaali ahaan uga muuqan oo aad waxaa tahay uga muuqan oo aadan codkaaga geysan oo aadan contribution fundraising wax ka sameeynin oo aadan dadka garab taagnayn bari markii wax la qaybsanayo dadka kuma jirtid. marka wax weyn weeye waxaan qabaa Soomaalida aad iyo aad wax lagu farxay ahayd in hatta markii inta ka badnaayeen laba ay ahaayeen dhowr iyo 10 ahaayeen
dadkii afar shantii ugu fircoon qof walba markuu habeenkii campaignkiisa ama ha sameeyo markii laga badiyay khudbadii uu isku dhiibay u dhahay waa laga badiyay ama kuwii soo raayay qof walba Soomaalida garab taagneed marka taasna wax lagu farxo weeye waxay ku tustaa Soomaalida inay kor soo kacday hamigoodii siyaasadda waxaan qabaa inay noqon doonto saaxiibay Soomaalida ku yeesheen sida hor Boston ku yeelanayaan oo meel aad iyo aad muhiim u ah waxaan qabaa inay tahay guul loo soo hooyatay iyo Soomaalida wacyi siyaasadeed ay qaaday oo talaabo horumar haddana waxaan digaroganaa dhinaca iyo caasimadeeni Soomaaliya ee Muqdisho waxaynu ognahay in bilo ka hor uu is-asilay gudoomiyihii bangiga ganacsiga ee keedka Soomaaliyeed Cabdisalaan Cumar markii ay qolooyinka loo yaqaan monitoring group ama qolooyinka dabagala xisaabaadka ama xisaabaadka Soomaaliya siinay dabagalay ay eedeen bad u soo jeediyeen dawladda Soomaaliya waxa kaloon ognahay in ay hadda is-asishay gabadhii isaga lagu bedelay Yusur Abraar runaantiina eedeen u soo jeedisay inay nafteeda la baqatay oo handadaad iyo hanjabaad uga timid dawladda Soomaaliya marka maadaama adigu aad ahayd wasiir ku-xigeenkii wasaaradda maaliyadda ee Soomaaliya ugu dambeeyay hadeer inta wasiirkan hadda ama xukuumadda intaan la dhisin marka wax ma nooga sheegi kartaa arrimahaas haddaan ka bilaabo saatiri monitoring group report-koodu waxay soo jeediyeen eedeyn bay u soo jeediyeen dawladda reportkaas wuxuu soo baxaa every year by the way groupku waxyaalo badan bay shaqo ku leeyihiin Soomaaliya Eritrea bay ku sameeyaan monitoring qayb waa qaybta barcadkeeda dilgarayaan security-ga iyo shabaabka iyo argagixisada ay ka hadlaan waxay kaloo ka hadlaan maamul xumada waxay ka hadlaan musuqmaasuqa waxyaalahaas oo dhan xagga dhaqaalaha dawladda eedeyn bay u soo jeediyeen lacag badan loo nusay saad sheegtay waxa gudoomiyihii hore ee bangiga Dr. Cabdisalaan Cumar dadkii wuxuu ku jiray lagu refer gareeyay report-kooda laakiin intaan ka aqaan Cabdisalaan waxaan wada shaqaynaynay aniga asagoo hal sano barkii aan wasaaradda maaliyadda joogay Cabdisalaan wuxuu ahaa advisor wasaaradda waa noo ahaa wuxuu kaloo ahaa account aan leenahay fiduciary account aan leenahay dawladdu ay leedahay oo ah banaanka lacagaha noogeeda noo soo maraan Price Water House ayuu ahaa ninka qaabilsan ee lacagahaas noo maamula Cabdisalaan intaanu ka aqaano nin aad nadiif ah weeye nin very professional aad aqoon sareyso weeye Washington DC aan buu ka ahaan jiray chief staff mayor Williams markuu joogay wuxuu ahaa I think deputy chief financial officer ama financial officer midkood nin aad khibrad soo dheertaa weeye nin markaan wasaaradda joognay anaga asset noo ahaa wax badan aan ka faa'iideysanay wuxuu noo qori jiray waxyaalo badan aan kala kaashin jiray sababtoo waxa weeye xukuumadii nagu horeeyay wuu la shaqeynayay markaan nimid hadduusan joogi lahayn waxyaalo badan baa nagu adkaan lahaa wuxuu la socday African Development Bank account waxa noo yaala World Bank waxyaalaha marka aad iyo aad wuxuu noo ahaa intaan ka aqaanana anigu hadda wixii report iska difaaci kara laakiin intaan ka aqaano Cabdisalaan nin Soomaali oo nadiif oo professional ahaa laakiin nasiib darro kulay report baa waxba lagu eedeeyay Cabdisalaan shaqada waa ka tagay kuna political pressure iyo isku suga tagay warqadu isku cajilaan ma arag laakiin waxaan rabaa inaan anigu sheego kaliya intaan ka aqaan Cabdisalaan waxyaalo badan baa suuqa la kashay Soomaaliya hadaan kaarta istiraatiiji baa iska jira dad badan oo dawladda si kale u kacsan baa haday ku maqlaan qofkii Karbaashi laakiin Cabdisalaan intaan kala shaqeeyay wuxuu ahaa nin wanaagsan waxyaalahaas hadda lagu eedeeyna nin ka bari oo ka fog ahaan jiray haddaan u soo laabto September ayaa la magacaabay istaan khaldanayn Yusur Abraar iyadana sida ay ugu magacaabeen wali laakiin waxa ugu maqaalaa inay tahay qof aad iyo aad u aqoon badan waliba financial system-ka xagga dhaqaalaha khibrad ku leh Yusur hadda nasiib darro saanka ku maqleen wireless-ka iyo news-yada iyo waxay iscasishay tobanbari gudaheed baan malaynayaa iyadoo oo ka sheeganaysa in ay nafteedii u baqday iyadoo ka sheeganaysa in aan twistin lagu sheegay gacan wali la rabay in uu hasbo wax saxiixdo waa nasiib darro sababta waxa weeye waxyaalo badan baa isku xiran waxa sida la soo qoray soo qoreen press soo qoreen Yusur waxay ka dacwoonaysaa baa la yiri hantidii qaranka ee Soomaaliyeed oo Soomaaliya u taalay banaanka waxa loo magacaabay dad baa xaashiye la siiyay iyaga ka mas'uula
dad Soomaaliya oo aan dawladda ku jirin haba la siiyay haddana waxaa la yiri shirkado kale oo Mareykan basekeedu yahay oo Shulman Rogers in loo marinaya ayagu dadkaas wax ka wataan shirkadaas waxaa ugu magaalaa inay ahayd shirkadii markii monitoring groupku ay Soomaaliya eedeeyeen hayaab leh shirkadii Soomaaliya difaacday way marka meesha khalad ka jira horta aan la yaabo waxa dawladdu oo lagala taliyo ay ku khaldan yihiin laftigeedu haddii aad eedayn ugu soo jeediyo laba si oo looga baxay ama adigu inaad horta koow marka waxa weyn adigu dawladdu waxay ahayd wasaaradda maaliyadda ama bangiga ama dadkii eeda loo saaro qolada loo saarayba inay ka jawaabto eedaas iyada in cid kale uga jawaabto ma wixii ka khaldan waxay ahayd oo kale hadday xataa hayar gareynayaan noqoto inay rabaan dad inay u noqdaan oo madax bannaan inay shirkad dad madax bannaan ay kula heshiiyaan qolada iyagu eedaysan qolada keena dad dhexdhexaad ah oo hanoo qabtaan laakiin adigu markaa nin lacag siisid oo adigu lacagta wixii tahay audit lagu samee dee ninkaas wuxuu ekaanayaa defense teamkaaga dadka ku difaacayo wey qareenka adigu difaacayo marka cadaalad kama noqon karo macnaha waxay soo saaraan baan ka hadlay inay wax sax ka sheegan waa laga yaabaa laakiin wax macna subin kara dacwadii ka subin kara ma aha sababta waxa weeye there's a conflict of interest ninkan adiga lacag siiyey adiga tiri caddeyn aan waxba la igu lahayn hadda waa caddeynaya waa khasab macnaha aqliyan baan ka hadlaya marka annagu waaga iyaga eedaa la soo jeediyey inkastoo eedaa la soo jeediyey lacagaha ay badankood ay ahayd xukuumadihii naga horeeyey oo ay 2010 laakiin nabadda xukuumaddayadii waxaa la yidhi laba saddex waxbaa ku eeday jawaabta loo diray monitor groupka sanction committee aniga laftiga warqadda qoray warqad 4 pages ahayd waxaan kaga jawaabnay item by item waxaasaa nagu eedeeyeen wixii baan soo qaadanay wixii baan sharaxnay waan u celinay wax ka afartii item iyo shantii item nagu eedeeyeen baa mid walba intaan ka qancnay baan u diray waana ka qanceen marka waxaan garan lahahay wax ayagu ay sameyn karaan waxay dad kale ugu dirsan karaan taas waa kow halkaas aan inaan su'aal ku dhexgeliyo in nacam nimankan monitoring groupka dawladda waan aadi doonaa laakiin arinta yusuf bal soo yara noqon waxaad ku ogtahay in sababta keentay in iscasisho hadda yusuf sida ku qoran wirelesska waxaa nagu maqaalaa inay isku casishay in hantidii qaranka Soomaaliya markii dawladdii ugu dambeysay dhacaysay burburka ka dhacay Soomaaliya hantiyo badan banaan ku yaalay iyo mucaawinooyin waxyaalo badan Soomaaliya leedahay waxyaalihii markii in la soo cesho way waqtiyadii waqti badan baan ku dhuminay aad baan uga daba tagnay waxaan ku guuleysanay inaan badankeed waliba hantidii fiskalka ahayd la taabanka fixed assets ka ahaa iyo lacaga bangiyo ku jira qaarkood aan soo xisaabino Europe ha ahaato Djibouti waxa naga yaalay ha ahaato Yemen maraakiib wixii yaalay sida Europe ka Soomaaliya Airlines oo kale account yaashii ku jiray waxa soo dhammaan marka laakiin transitional government uu looma ogolay dawladdan markii ku magaal ka baxday xaq waxay yeelatay awood leedahay inay soo wixii dib u soo ceshato halka aan ku dhexgeliyo adoo raaliya dawladdiini laftigeedii maadaama aan saxaafadda ku jirno waxaan ogeyn inaad idinka laftigiini loo magacaabay dad aan dawladda ka tirsaneen inay hantida qaranka ay doonaan marka arinta deja vu waxa lagu yiraahdo luqadda Faransiiska arintii baa soo laba kaclaysa haddana horta hore dawladdeedii waxaana la waxay ahayd dawladdeedii wasaarihii June waxaa la magacaabay 2011 annaga waxaana la magacaabay waxaa la magacaabay July 23 maqaban la dhaariyay shaqada markaas aan bilownay December dhamaadkeeda November bilowga waxay maqanay marbaan Germany waan tagnay anoo u tagnay National Recovery Asset waxa in la soo cesho hantidii Soomaalida maqreed waan u tagnay Germany waxaan naga maqan qabnay naga jiraan markaas waxaan ogaanay markaan tagay meeshii waxaan ogaaday in ay jiraan German noo sheegay dawladda German noo sheegtay in ay jiraan dad Soomaaliyeed ee haysta waraaqo oo u qoray madaxweyne markaas naga Sheekh Shariif oo laba ra'iisul wasaare naga horeeyay sidii Dr. Umar Abdirashiid iyo Cabdullaahi Farmaajo in loo qoray la yiri waxay yihiin la yiri waxay mas'uul ka yihiin soo celinta hantida qaranka Soomaaliyeed wasaaradda maaliyadda hoos timaada hantida qaranka Soomaaliyeed xukuumaddii waaga Umar Abdirashiid waxay jirtay wasaaradda maaliyadda wasaaradda lacagta iyo hantida qaranka
laakiin anaga xukuumadda waxa weeye wasaaradda maaliyadda wasaaradda lacagta hantida qaranka hoos imaanaysa bariga maxaa ka qabateen waxaan ka qabanay waxa weeye markaan ogaanay isla markiiba anagoo Berlin joogno aan ka tegin warqad baan u qoray waxaan u geeyay international development wasaaradda horumarinta xiriirka adduunka international global development German wasaaradda kamid arrimaha dibadda la xiriirta baan u geeyay warqad u qoray wasaaradda arrimaha dibadda wasiirka arrimaha dibadda Sacuudi Maxamed Ibrahim baan u marsiinay faraha ka saaray warqadda aan qoray oo aan leenahay hantida qaranka Soomaaliyeed dabagalkeeda waxaa shaqo kule wasaaradda maaliyadda oo kaliya qof kale oo shacbi ah oo ka madax bannaan oo wasaaradda ahayn shaqo kule mana dabagali karo wixii waraaqo haystaan oo ka horeeyana disregard ku sameeya wixii hadda ka dambeysay anaga kala xaajoonayna halkaasna waxaan ka bilowday xaajoodka isla markaas waxaan sameeyay intaas kaliya kuma dhakaari anagoo filayna in waraaqahaas meelo badan la geeyay warqadda waxaan u qoray dowladda Talyaaniga European Unionka midowga Yurub warqad kale waxaan u qoray Djibouti dowladda Djibouti warqad kale waxaan u qoray dowladda Yemen anagoo meelahan ku tuhmayeen wax jira oo dhan si aan qofka warqad ula imaanin oo uusan oran anaa mesela hadhow lacagii meelka uga bixin uusan baran wasaaradda warqadaasan qoran hadda ma waxaad isleedahay problem ku xakeenaya wasaaradahan la isku dardaray ee la mideeyay bangiga oo kale wasaaradda maaliyadda waxaa la mataansan wasaarada kale marka ma waxaad isleedahay marka maadaama dad kale hadda la magacaabay saatiri oo hantida qaranka raadiya oo wasaaradda maaliyadda ay si toos u raadinaynin marka problemka halkaas ka imaan xaguu ka imaan marka problemka nacam iyo actually de anagoo u waray in lagu qasbo inay wax saxdo ama wasiirka maaliyadda nacam halkaa noo faahfaahin kartaa waxa ugu magaalahay ma umaleeyo dadka hadda leeyahay warqadaha watan waa dadka warqad marka hore intaana imaan watay oo anoo markaa nibad andari warqadooda xilka ma jiraan yiri bashan wasaarad baa dhisan wasaaraddu markay dhisan shaqada wasaaradda ay hoos timataa hantida qaranka Soomaaliyeed wixii aan soo celinta hantida qaranka Soomaaliyeedna wasaaradda maaliyadda hoos timataa waxa qofka warqad uu qoray la yimaado ma aha wax isku khaldamay waa khalad iyo burcadnimo iyo wax intoox iyo wax geesin lagu talagalay way sababtoo waxa weeye wasaarad baa jirta dadka wasaaradda jira waa capable ayaga sameynayay maxaa la dhahaa waxaan iskareynay oo soo aruurinaynay wixii naga maqnaa information-keeda waahay wixii naga maqnaa marka waxa dad kale oo ama Washington DC ama magaalo kale fadhiya ama Europe fadhiya ama Nairobi fadhiya loo yiraahdo oo shacbi ah loo yiraahdo orda idigu doona hadda waa khalad waxaan qabaa waxa kamani karo lagu hayar gariyo oo ajnabi ah laftigoodu waa khalad waa consultancy waa la qabsan karaa oo professional ka caawin karo oo legal firm ah yes laakiin hadda sida Yusuf ka dacwatay oo nala ku yiri waxa weeye in la yiri lacagihii ka imaanayay yaa lagu soo bangiga dhexe Soomaaliya warqad ay laga qoray dacwad hal lagu shubo Shulman Rogers meeshooda sida hadda warka loo dhigay way kulay runtiisa waa loogan doona taa hadii taa waa nasiib darro horta marka koobaad waxaan la yaabana waxa bangiga loogu wareejiyay National Asset Recovery-ga waxa shaqo ku leh wasaaradda maaliyadda iyo lacagta waa shaqo ku leh waxa shaqo bangigu shaqo ku leh National Asset Recovery-ga ma jiro marka hore waxa wasaaradda maaliyadda looga wareejiyay xagga loo geeyay waxa la yaabaa haba loo wareejiyay waa wareegtay laakiin waxaan qabaa anigu Yusuf waxay sameysay wax aad sharaf u ah iyada sharaf u ah dadka Soomaaliyeed sharaf u ah dumarka Soomaaliyeed sababta talaabo waxay qaaday dadku badankood Soomaalidu dadka meelaha loo magacaabo qaarkood shaqa jeclaysi meesha ku dhagano iyo waxa laga yaabaa inay qaarkood shil iska dhiraayeen laakiin inay ka hortagtay in lacag badan oo Soomaaliyeed ummadda Soomaaliyeed oo masaakiinta inta sugaysay la bilaqaysa meel la mariyo hadii warkaasi u sheegtay tahay runtii wax lagu farxo weeye Yusuf waxay istaashay waxaan qabaa in calanka Soomaaliya loo hubiyo shaqa fiican bay qabatay dawladuna waa inay arrintaas ka bixisaa jawaab not only jawaab ka bixisaa dawladdu dadka lagu eedeeyay xafiiska madaxweynaha iyo dad kale haddaysan dawladdu ka jawaabin waxa cadaanaysa inay tahay miskiin fuulaaniyay wiilashan yarka lagu eedeeyo in dadka dambeeyeen oo loo diray ma garatay sababtu waxa weeye dawladdu waxa ka saaran dadka Soomaaliyeed waa la fiirinayaa lacagtu lacag yar maaha ilaa lacag 100 milyan baa xagga loo wado wax yaab leh waxa weeye roober weeye maalin cad baa leena subxaan Allah wixii ummadda Soomaaliyeed loo wado dawladdu hadda lacagaha balaj loogu sameeyay balan qaadiya loogu sameeyay Yurub haddaysan wuxuugaagii iyo hantidii hore hartay bay rabaan dariiq la maraan sidee loogu aamino doonaa lacagaha banaanka ka imaanaya credibility iyo sumcaddii Soomaaliya oo hadda soo kacday ayaga baa lagu hagooniyay marka waxaan qabaa inay dawladdu ka jawaabto muhiim weeye laakiin again mar kale anigu Yusuf aqoon ma laakiin waxaan qabaa inay sharaf ummadda Soomaaliya soo jiiday again dumarka Soomaaliya soo jiiday
Soomaalidu ay cadeysay in kulligood u tagin meesha dadka qurbaha ka tagay waliba in kulligood u tagin meesha shaqo doon iyo hanti boob ay u tagin qaarkood Soomaalinimo iyo wax qabtaan waa gartay cali haddaan u soo noqono waxaan maqalnay in gabadhan la yiraahdo Yusur Abraar hotel Al Jazeera ama la geeyo qada loogu sameeyay kadibna nin hadda ka ah madaxtooyada chief of staff ka ama madaxweynaha ragga muhiimka ah waliba xafiiskii dhamaaye laga daawanayay muraayadii wadanka ah nin ka shaqeynaya inuu hadadaada sameeyay marka maadaama uu arintaas sameeyay si toos haddaan u niraan miyayna arintan noqonaynin arin uu mas-uul ka yahay madaxweyne xasan sheekh haddaan su-aashaada usoo laabto staff question madaxweyne wax ma ka ogyahay horta ilaahay baa og laakiin muhiimaddu waxaa weeye haddii xafiiska madaxweynaha chief staffkii xafiiska haystay haddii eedda la soo jeeshay eed runa tahay ay dhacday in intii uu qado ugu yeeray guddoomiyihii baarlamaanka bangiga dhexe gobolka bangiga dhexe Yusuf tu ugu yeeray qado uu ku khasbay ama ku handaday in ay saxiixdo si lacagahaas loo wareejiyo loogu soo wareejiyo bangiga dhexe loo wareejiyo shirkad kale taas waxa weeye waxaan qabaa inay tahay arrin dambiye madaxweynuhu ka warqay in ka ilaahay baa og laakiin muhiimaddu waxa weeye hadda waxaan u dhahay weeye eedu hadda waxay saaran tahay dadkii la kulmay madaxweynuhu waa dhihi karaa inuu kama warqaybin laakiin muhiimaddu waxa weeye waxaan qabaa waa fal waxaan qabaa dambiye weeye madaxweynuhu hadduu la ka maqalno inuusan horta dowladda inay ka hadasho kama hadlo waa ka aamusan tahay oo waxay inay ka hadasho dowladda inay ka hadasho weeye markay ka hadasho dowladdu dad inay ka hadasho ma ahe in waxa weeye dadkii waxaas lagu eeday inay tallaabo sharci ka qaado weeye ma in shaqada laga eeday kale tallaabo sharci laga qaado weeye gobolka bangiga wiil yar oo chief staff amar ma siin karo waa jira caqli anoo markaan joognay chief staff ka xafiiska madaxweynuhu soo warqad wato nool imaan jiro oo rabo inuu amar baxsho wiish isku bedelo wala yahay lacagahaas keena laakiin wuxuu gacsiri jirnay wana ma oran jiray nagala tagaan jirnay marka muhiimaddu waxa weeye Yusuf wax weyn ma samaysay laakiin madaxweynaha waxa maanta u yaala xukuumadda laga sugay labada madaxweynaha kale iyo ra'iisul wasaaraha labada waxa laga sugay waxa weeye in hadday aysan waxaan lug ku lahayn ay tallaabo sharci ka qaadaan ay maxkamadda iyo attorney generalka ay u fasaxaan in arrinta wax laga qabto weeye immediately dadka waxa sameeyay tallaabo laga qaado weeye inta kale madaxweynaha warqadan la ordayo oo leeyahay Sheekh Shariif al-Qori madaxweynaha cusboonaysiiyay waa khalad in ayadii wasaaradda maaliyadda jirto qaybteedii jirto xafiiskeedii jiro lacag ku bixinay waqtigan joognay tababaraan sameynay lacag badan baan ku bixinay aan ku kharash gareynay in tababaro not only in wasaaradda maaliyadda loo subiyo wasaaradaha kale loo subiyo dad u qaabilsan sida hantida tirakoobka hantida loo sameeyo marka wixii kharash oo galay iyo dadka la tababarna wax Soomaaliya qabsan karto wax aad qabsan kartid maxaad qoolo kale intaad ugu yeeratid aw bixinaysa maxaa nin kale oo private oo Soomaali citizen oo banaanka jooga loogu xil saaraya maxaa lacagihii imaan lahaa oo bangiga dhexe Soomaaliya ku soo dhici lahaa hadii aan meel walba waxaan ku haynay war hadda la aamino yaan meel kale wax naloo soo marin haddii lacagtii ugu horeyso noo imaan lahayd ayadoon wala imaanin la rabo in dariiq kale la mariyo haddii ceebtii iyo wixii ka yimid in Soomaaliya lagu tumay in Soomaaliya dowladda ugu musuqsan eedeeda xukuumadda iskale iyo madaxweynaha iyo xafiiska iskale haddaysan waxa weeye hadalkayga waa ku ceshanaya haddaysan arrintaas dadka ka jaahil bixin oo tallaabo ka qaadin oo warcad ka soo saarin oo wax dadka qanciya ee saahayn Yusuf ee soo jeedin loo oran waxaas la carartay iyo waxa been aan la imaanin u maleynaya inay waxa si warka u sheegtay warkayga qaba waa arrin u taala madaxtooyada xafiiskeeda oo madaxweynuhu u sareeyo iyo ra'iisul wasaaraha inay jawaab cad ka bixiyaan arrinta su-aasha kale ku soo waxay hadda waxa Soomaalida siyaasadeeda caan ku ah qofku markii uu qof sidaas Yusuf oo samaysan kala samayso in lagu eedeeyo isla markii in la yiraahdo lacag bay la goosatay oo xogaaba ku tagi marka dawladda laftigeeda dawladda Soomaaliya haddii nin xafiiska madaxweynihii uu saa ula hadlayo governorka ma waxay ka imanaysaa markaa wali dawladdu aan lahayn capacity dawladnimo dadkan wali dawladnimada macnaheeda fahmin ama aan ku dhaqmaynin oo wali isu haysta maaragtay in xukunku inuu yahay maaragtay mid iyaga kaliya iska leeyihiin oo kale maxay noqonaysaa maxaa ku kalifaya isleedahay in nin chief of staff uu gudoomiyay bangiga uu soo xarab ka sameeyo
waxay noqonaysaa weli caasimadii oo dadka ku noqonin waxaan rabaa inaad bal halkaas maxaa ku kalifay maadaama aad xamar joogtay firi waxaa jira waxaa barto baaskaada markaan tagnay caqabadihii kow wadan ka example arrintu waa sii xirta markaanu joognay 2 bilood chief staff markaa joogo warqad buu noo soo qoray maalin uu leeyahay lacag hebla lacag rabo chief staff-ku wasaaradda maaliyadda warqad uu soo qoro lacag buku bixino macnaha nidaamka Soomaaliya soo sabtay dhaqaalaha lagu baxsho حتى مدحوينه درته وزارة المالية حكومة صغرى مدحوينه الوزارة وقرأ وزارة لا سحر ثلاث أشهر غيثا أنا إسكال لا جرته لأن الله نشيف ستاف وركيس ما بيجري ورغد ما نوصل صغرى كلام أنا ونوح العقل نودي سني رد صغري وكدي وقرن كلا أسوي وحنا أختم وتحت وصوعي أو كركرية ما لكن جري وي وحنا نروح ماشي غير ماشي هتلاقي كي كدن بيا مركو يبد ناس وكان العقد 19 كنا أو مدحوينه مرة لندن وسافروا إليه مرة نقول العقد 19 كنا أنا جواب بحضر مرة بحين كر لا نصومر حبيت كانوا زارها سيا ده العقد ما هينه هذا الذي اللي ودي حكمته أو مدحوينه عم بكرة ديريسة عنها وحلوة أركيا سيدي قف أما وال أما كبري أما شعري على قون أنا على قصعد خارج قصعد بركة نظام ديري جروي لكن وحكون أنت هذا قف كبيش جو سوق ديره بيكون حرمتك ده maxaa keenaya marka maxaa keenaya arinta iyada in qof xafiiska madaxweynaha jooga oo intuu yimaado dadka kale ma su'aashii waxay nacam yasid baa ku jirta what is going on halkaas yasid kaliya yasid waxa keenaya ninkan chief staff-ka laga dhigay ama ninka xataa madaxweynuhu weey amarka uu wasaaradda la iman nidaam baa jira nidaamka dil laga boodo meeshan waxa ma nidaamkeena garanaynin marka ama garasho la'aan ee tahay very possible highly possible waa aad wax suurtagal ah waxaa laga yaabaa oo kale tahay haddaan laga cishan ya la oran ayagoon garanay ama garan marka anaga nooyo ka diidnay maadaama warqadii badda nooga keen taas waxaa ku cadeynaysaa haddaa yaa iska tirahayd inaysan kula imaan karin laakiin meeshaan waxaa malaysaa xukuumaddii iyadu u dhexaysay in boos iga baxsan tahay waxaa malaysaa chief staff-ku inuu maamulanayo maxaa la dhahaa wasaaradda maaliyadda warqad u qori karo not only that waxaa yaab leh sideedaba bangigu lacag baa la dhigaa authorization lacag wasaaraddu wax ka bixinta lacagta bangiga laga bixinayo wasaaradda maaliyadda iyo accountant generalka haashiya Soomaal siixida looga baxsha bangigu intee warqad isku qoran lacag ma ka baxsha marka horeba arrintan laga wareejiyay wasaaradda maaliyadda xagga loo wareejiyay waa wax sharci waafaqsan maahay مقرنسا لام يبدأ لو واحد جرا حكومتها مركي حكومتنا عصبة كتير أنا وقعد ولا يعمل كتاب لي أنا صغير هذا أنا يا وحكمته بجد بأنه دكتور عندك وزارة دولة نو دكتور مركي حكومة دي مركي حكومة التيم بجد وجانوري إلى أيو ديسمبر مركي حكومة عصبة تيم مدحونه يبد أنتي عند وزارة المجاعين بقى waxaana la tashan Cabdisalaam Umar oo wasaaradda la taliyo ahaa iyo niman history of very professional oo Ali Isa Abdi iyo Ali Abdiraxmaan niman highly professional aad wax noo tiri jiray oo xafiiskoodu ku yaalo weyn ku yaalo adsawa la krijinka dhan kala taliyo professional niman IMF iyo World Bank u shaqeyn jiray kullugood anaga wixii aan u baahna support ama ha noqoto budgetka sameyntiisa ama ha noqoto technical naga caawin jiray consultancy ahaan oo ayuuna lacag ku qaadan jiray through World Bank through African Development marka dhibka jira waxa weeye wasaaradda markii ay wax bixinta kharash la bixinayo kharashka waxa bixin kara wasaaradda maaliyadda baa qori karta kharashka lacagta lagu qaado wasaaradda ama wasiirka afsooyinka ama wasiir dowlaha baa amarka bixin kara lacagta looga bixinayo ka bacdi waxay maraysaa account general xisaabiyaha guud baa asna arkay qoraya halka lacagta looga baxsha laakiin lacag banaanka gomar bangi uu dhigo hantida qarankana sideedaba bangiga dhexe ee Soomaaliya hantida qaranka shaqo kuma lahayn bangiga dhexe shaqo kuma leh hantida qaranka ee Soomaaliya national assets recovery qaybteeda soo celitaankeedana waxaa shaqo ku leh wasaaradda maaliyadda xafiis bay leedahay waax bay leedahay shaqaalay leedahay xafiisyo leedahay dokumentooyin iyo waxaan haynay wax kale iska dhaafay iyadoo video la soo duubay ee CD
waxaan soo aruurinay intaan joognay oo ah asadka Soomaaliya safaaradda waxa ka mid waxa meesha ka jaban tahay lacagaha naga maqan halka escrow account wuxuu noogu jiraa actually lacag baa naga soo gashay mar German nooga timid ilaa 200 kuna nooga marka waxa la og yahay marka wax shaqo socotay wax nin banaanka jooga ee loogu diro ama chief staff u dalbado waxa weeye ku tumasho dastuurkii ku tumasho nidaamkii tuhun waxa imaan kara ilaahay baa ogolaaday tuhun waxa imaan kara ah qof hada arsiisa sharciga meel maraya ujeedada jirta waqti hadaan rabo inaan anigu waxba isdaba marin sharciga ma daba marin sharciga raacaya laakiin hada arti qof sharciga ka leexanaya amnaanku ka leexanaya of course tuhun baa jira tuhunkaasna waa in horta garbaxaan markii la eedeeyay waa in qof kale la wareystaa laakiin waxaan qabaa in bedel muhiim tahay madaxweynaha xafiiskiisu inuu arrintan ka jawaabo inuu tallaabo ka qaado in waxaan qabaa aniga gabadha baxdayna hadda current destination iyo been iyo qof loo bil iyo bar bijito ama bil iyo bar qofka lacag halkee lacag ka qaadanaysa ka qaadan karta yusuf meel lacag ka qaadan karta habeeyay ma jirto lacag ma qaadan karta kaash intee qoorta ma qaadan karta yusuf hadday lacag qaataan waa hore la hadli lahaa waa hore la hadli lacag bay qaatay waa waray hogay baa wax la qaatay oo ay ka hadleen ma jirto waxaan qabaa ayagii cirkii ku soo dumay oo hadda meel wax ka bilaabaan ma hayaan si ay uga jawaabi lahayn baa hob inaysan Shulman Rogers ku laaban ay soo oran uga jawaab haddana arrintan oo lacag lagu siiyay waa gartay in maadaama wasaaradda maaliyadda ay ku shaqo ku leedahay hawshan Yusuf adeer loola tigi maxay kula tahay wasaaradda maaliyadda inay ka samayso arrintan iyada ah wasiirka wasaaradda maaliyadda oo kale Soomaha in sida shaqada isaga tago wallahi markii hore oo horta la wareejinayay waxay ahayd inuu diiday waa laga yaabaa laakiin kulli anu hadda booska fadhin lahaa shaqada uga tagi lahaa runtii markii noqoto markaas la wareejinay ka tagay sababtu waxa weeye markaan warqadda qoray oo Germany joogay oo aan ku diidayay warqad uu madaxweyne Sheekh Shariif soo qoray oo naga horeysay aan leeyahay waxba ka macna warqadaas ma raacin sababtu waxa weeye sharciga jira wadanka sharciga muula man wadan uu qof maamusho nidaam ma jiro دمقراطية عصبانة هذا كل شيء سمي دستور سمي سمي ندام باجرة شرعية وكل شيء قيسو إلها مالية وكل شيء قيسو كلها وسيد أبو الفقري كمان وحن مرسيني برلمانك بدهوينها صحيحي بلك بدهوينها صحيحي هدو ورقد جت وضد وهراء وقري شرعية ما قماي وحن كل جدا شرعية سكوها ليني of course كلو جري برايم مينستر أوجهي وحن قبلنا رقبة وعندنا لودا مرة أن كيرين مقالتي أنا جنوا الخوي هذا قانون لكن مهمة waxa weeye wasaaradda maaliyaddu ma aha in la qaato shaqadeeda kulli wasiirku asaga ka jawaabi doona laakiin wasiirku arrintan ma markii la wareejay uu ka qaaday talaabo hadda moog la wareejiyay hadii xafiiska prime minister iyo madaxtooyadu baraas soo qorado arrintan waa la wareejiyay waa arrin qaab daran loo wareejiyay laakiin marka aan u ogaa wasaaradda maaliyadda waxa shaqo ku lahayd hantida qaranka iyo aruurinteeda iyo soo celinteeda iyo dabagalkeeda waxay wasaaradda maaliyadda qaabilsan xataa haddii bangiga lagu wareejiyay xafiiska madaxweynuhu amar uu dhaho lagu wareejiyay ama wiilal joogahay qurbaha joogahay in waraaqa loo qoro tan diidno kale la soo cesho rogaan lagu soo cesho ay lacagta lagu doono waxaan qabaa waxa waxyaalaha rabo in meel kale lagu marsado wadaqada la mariyo not only that waxa cadeynaysa hadii la yiri lacagta lagu shubi karo bangiga dhexe ee Soomaaliya intaas waxa ku dacwoon war bangiga dhexe ee Soomaaliya waxa lagu shubo price water aan loo soo marin hadii bangiga dhexe alxamdulillah waqtiga hadii la bangiga waxa la soo gelinaya waa farxay hadda hadii bangiga la soo marsiin hadana laga tuuro washington halka aan agti waa wax yaab loo runtii wax yaab loo waaye wax laga naxawaaye maanta oo Soomaaliya arinta ma la hubaad arinta cadeen ma loo hayaa waxaan ugu celcelinaya mar walba hadii jirto tan ku leeyahay waxaan ku leeyahay hadii jirto waxa weeye hadda waxaan ku soconaa oo kaliya wararka laga soo qoray Yusuf hadda Yusuf hadda afka ka maqan laakiin waxa laga soo qoray ba hadda ka sheekeynaa hadda waxa laga soo qoray wax jira tahay arin aad iyo aad u foolxun waaye eedeedan dawladdu ku habsanaysa meel uga baxdan dawladdu waa inay talaabo sharci ka qaaddaa wixii sameeyay وهاي على فيصل سؤال وجود بيسان كويدين إنه وحويان إن دتكي يوروب يا أمريكا جوجي الصوماليات دلكي ميت مركي هرن كبرت العكتي دلك هويو وحبرشة ده كبحسي مركي دبنا عروتو دلي من قربها إن كفا إيدي عروتو حقوق برتان
the bureaucrats dadka loo yaqaan de how rag hawsh yaqaan maadaama aysan dalka ku noqonin dawladdiina ay isticmaalayso intii ikraankeeda dadkii dalka ugu haray marka miyaan la oran karin in qaladaadkan badan imanaya muxuu ka imanaya dhinaca leadership ka imanaya mise wuxuu ka imanaya dhinaca lack of human sources kan dad wixii waayo from the big bitoni ilaa iyo wasiir waxa weeye wasiirna waa la hayaa bitoni waa la hayaa waxa laga yaabaa intii u dhaxaysay inaan la haynin marka dhibaato halka way ka imanaysaa miyaan la oran karin oo dawladda wax walba inaan lagu eedeyn karin marka wadaan cam horta hore waxaa jirta mid hubaal ah anoo dhahayn dadka Soomaaliya dad wax yaqaan oo shaqada wadi kara waa joogaan waa hubaal at the same time waxa hubaal ah iyadana anaga iska wadaha Soomaaliya Afrika dhan baa waxa la dhahaa waxa u dhacay brain drainage oo dadkii wax yaqaanay shaqooyin iyo professionals ka ahaa baa imaanay Harvard wax ku baranaya markuu jaamacadda dhameeyay ama jaamacad kale tolaaban lahaa shaqo fiican iyo lacag fiican iyo nabadaan iyo iska dhaxdaaq wali halka iska degaya marka dhibaato badan baa Afrika ka haysta Soomaaliyana waa wadan burburay oo soo cararay oo dhibkaas waa ku sidaayay weeye dadku inay laabtaan muhiim weeye laakiin macnaheedu ma aha hadda caawa Soomaaliya ama xamar dad shaqooyinka qaban waaya qaarkood baa jooga ma aha waxaan qabaa in shaqo kasta dad qualified ah oo dadka qornaha ka taqaan jooga iyo kuwii xataa Soomaaliya ku bartay Soomaaliya jaamacada ku jira shaqada wada kale waa joogaan nidaamka dhowr iyo 20 sano waxa iska dhacay nidaamkii in loo hogaansamo dawladnimadii baa ka baxday faraha ka baxday marka qofka madaxda ah markuu yimaado dhaqan waxa iska jira ama madaxda ama wasiirku waagayaga waxaan u bixin ra'iisul u baxshay Cabdiwali briefcase ministry macnaha in waxyaalo la dirajo waxay in la sameeyo institution building in la sameeyo haykalkii dawladnimada la soo cesho aysan oran wasaaradda lagu wato boorsada lagu wato aysan jirin oo markuu wasiirku baxo wax memory oo ka haray oo xusuusa ama raadraaca ma jiro ninkii baa la tagaya waa in kow ka bilowda back to square one marka waa loo baahan yahay in dadku wax bartay qofka Soomaaliga ay xaq wadanku ugu leeyahay ad ku laabatay shaqo qabatay Yusuf baa kamid ah Cabdisalaam baa kamid ka laabtay mudnaanteeda leeyihiin anoo markaa joognay dadkayga dawladda nus iyo ka badan iyo wasaarayaashii saddex wasaare oo xukuumadda shaqeeyay inta dad banaan ka tagay ahay kulligood waxaan qabaa qof walba mudnaantiisu leeyahay maadaama Soomaaliya u laabtay kulleeba dhaliil waa iska jirtaa leeyahay oo dadka gudaha jooga fareed baa lagu arkay oo qurba joogti baa soo qaxay oo dhaqan celis oo wixii naga dafaya lagu leeyahay laakiin waa la soo baahan yahay dadku oo Soomaali way waxaan qabaa inay tahay si ay dhaqan waxa jira ahay Soomaaliya wali maxaa taqaanaa qiimaheedu waxa ka muhiimsan maxaa aniga naga dhaxeeya xiriirka saaxiibta naga dhaxeeya loyal bi tahay cheerleader mi ahaan jirtay meela shaqeyn jirtay taasaa ka muhiimsan dhan maxaa taqaanaa I have no problem uma jeedo wax dhiba haddaan intaan maanta madax ka ahay anoo ku aqaan shaqada ka bixi kartid oo cadaalad ku aqaan haddaan ku yeero kala shaqadan qabo laakiin waxa muhiim ah qofka loo yeeriyo shaqada loo dhiibayo inuu yahay qof shaqadii ka adag baa muhiim shaqadii ka adag haddii loyalty iyo qofka aad taqaanid hufnaantiisa taqaanid Soomaalida taqaanid wanaagis taqaanid aqoontiina uu leeyahay waa alxamdulillah wax ka fiican oo la heli karo male laakiin markii qofka lagu hayr gareeyo loogu yeero ama lagu shaqaaleysiiyo asagoo shaqadiiba aqoonin ama lagu shaqaaleysiiyo hatta duu shaqada yaqaanay yahay yasman oo amarka ninka sare haduu waa ninka madaxda ku aatiraado hatta wale kab saax uu wadi waxa yahay hadda laatan ka sugaatay bal ma ka fiirsano waqti laakiin saas uma badna marka labada waa isku jirtaa waa jira brain drainage dad badan wax yaqaan oo Soomaaliya meeha waa taanku Afrika oo dhan ama Terso Monda dhan waxa ka maqan dadku wax yaqaanan dadkan qaxootiga iyo ka shaqeynaya ama meelahan degan Mareykan dadka degan each and every Soomaaliya labadiina hadda television ay wareysanaya ama Soomaaliya waa inay baahan tahay anaga noo baahan tahay qof u baahan tahay Soomaaliya waa dadkeeda wadanka waxa dadka ka dhigay human resource Soomaaliya wax badan bay u baahan tahay taas waa u jiraan barnaamijyo waxa jira celinta oo IOMT hadda anaga wasaaradda in badan oo expert aan la shaqeynay waxaan la shaqeynay Cabdi Jalal waxaan la shaqeynay Ahmed Bobolo waxaan la shaqeynay Amir kullu dad professionals oo wax weyn tari jiray oo qurbaha ka yimid oo aqoon leh oo wax tar ah ma garad
wasaaradda ku kamnaa wasaaradda maaliyadda oo waxyaalo badan loo qaban jiray budgetka nagala shaqayn jiray fixed assets ka hadda waxaan national recovery assets ka maqan nin la Axmed Boobole shaqadu qabtay wax loo dhiga male runtii shaqada wuxuu qabtay very professional aad loogu baahan yahay wuxuu noo keenay CDL iyo cajalado iyo dokumentooyin ka hadlaya Soomaaliya wixii ka maqnaa Europe Djibouti قال جيبوتي نص والله يعني دولة الصومالية قريها كويا لوحة كويا العسكري بنجي واحد الحري بنجي الحري الصومالي أمريكا كويا لجيبوتي العين إلى 10 مليون دولار بهكوجرتي أكاونتي مركز الحري بنك الأول يجي حسابتي وتفترن وحنا لوكين حسابتي وتفترن وحنا لوكين ذاتك ديمها بنجو كلها وحنا لوكين قريها كلها دوكيمنتي very valid أو very important أو مهمة وهدو حتى عنك لو كله بري لبعتك يعني كلام أنا أقول لكم أنت أصحاب كورة جنة وزير كمالية ده كورة جنة. مركز واحد صح كاني نمان أقول له وربجوجها وحي صابرتي أو شغفي عن قبتي أو وضن كل أصول لابتي أنا بحكي قبتان كنا بحثنا. لنا بجت كواحد ندايته ودي رب الوضي مقصود قبل بيكرت بجت بجت كيني. أنا أنت ود سو بجت كهيد ندايته عن كهذا اللي وأنا دمشت وهاي هيد وحن كورة مركي أن حكم الدولة كتجيني وحن أكتوبر إلى نوفمبر إلى ديسمبر لهنا وهو يري أنت أنا قاعد مركو حكم كيبد وهو يري ويك دهت وهو أتصل قليه هسبي وعبد السلام يو دكتور عبد السلام دكتور علي السيو وهو جروب كله وهو يجتي يو إن لوست إن بجت صدق بالوضع السمايو وزارة أنا لما صومرين لكن وأنا وجاني قبل دارة الجامعة كانوا واحد اسمها جود يركن نوعها واحد نوجه بجت كإيراد أيها هندسة الويري أنا يعني وزيرك على فريق سمي وهنكون الواحد بعد تعمل أتجه عبد الله هنا الصوت ضعيف أنا كان ندافع أصلا إحنا نقول شيء لأنه هو بسيط عندي أيضا كعرين وأتجهن بجت كي صدق نوصل بسنا عنايا بقول كي بس عشان يشن بالغات وحيالي يربع حاجة اللي بدري أنا تاس وارك إني خبان قوان إنه الله هذا هرب حاجة قوان لكن لفتي سوى كذا بيست روسي كان بعد ماشي روسي مركي واحد يعمل هذا السماء يعني ماله سمركي واحد اللي جاي كلها برلمانك ولا ناس يعني الدولة دي حتى تمد بجت عصبة كان رنتي هو بجت كي أنا يقول نوت على على سوق علي minor adjustment rules waxyaalihi xagga laftigiisa meesha la keenay boqolkiiba 95 iyo wixii ka badan budgetka hore hal la keenay bil gudaheed hadan waxa lagu dhawaaqay 10 wasaaradood look dhibka jira waxa weeye budgetku waa wax sharci marka barnaamijka soo marsiyo budgetkii hore ayagu sameeyeen markii la sameeyay oo 3 bilood ahayd Kenya laga raacay 18 wasaaradood buu ku sareysnaa budgetka hadda la sameeyay وزارها سمين وطبعا هذا هو الوش شغالين شرعه مقوى فكر سولا السوق دارو شرعه هذه اللي هو السوق دارو إن بجت كودا دبل وقول أبتوي تلو السوق دارو السوق مودي كون ها شرعه مش شغاله نعم لا أو هذه مركي لسه هذا مريكن كومن سكيورتي وكان لسه وإن بجت قولي الله سنة هذه أو هم السوق تلقاه الوقت دارو نفتر في انتيري الوقت دارو وهاوي هذا budget وزارة الانتيرير كمان حتى تجيب له السماء يومي لما ده هو الوصف والدري هذا مركز وزارة المالية ده تيل العقدة قرشين تي هذيك عالمية أنت ولا سكوت دري لما ده كانوا budget كي لما ده budget كوزارة ده يكون خصوصي هذا ما شغله budget كوا والlegal document وزارة ده ما قاعد لو عارفها مركز هالكاس وحام يجمع قتل إني زين ضد فهسن نظامك وكشقيو مامولك بجتك وكشقيو markii bilowga hore waxa alif ka hadal baxro kulli halkaas waxa ka muuqatay nidaam darro aan waafaqsanayn sharciga ayagoo markaas dhahaya xukuumadda uga jeeday habaan qabanay ka ahayd laakiin dhibka keentay halkaas budgetka ka hadlayay laakiin overall waxaan ku celinayaa oo muhiim ah oo ah dadka daawayaasha nadigeysanayahay in la xusuusto way maanta Soomaaliya كمل جارب عن كبحني دولة رسمية تمد هنويني ببلاغتي
lacagihii iyo kharashaadkii iyo wixii loo diidan leeyahay maanta Soomaaliya hantideeda lama soo wareegay dad badan baa noo cadow badan baa leenahay oo diidan in Soomaaliya wax lagu keeno waan dhahaynay waxa inta u dagaalaynay hana loo soo cesho Soomaaliya oo aniga hana la aamino xoolaha iyo dadka la marsiinay hadda hawada Soomaaliya oo kale hawada Soomaaliya kharashkeeda aweeba waxay marisaa maxaa la yiraahdaa ICAO waxay marisaa International Civil Aviation Organization waxay marisaa UNDP da waagii UNDP UN ka xafiis ka marisaa waagii restore hubkii baa la sameeyay UN ku tagay UNSOM intaas waxaan ku daayay in loo soo cesho oo markii hadda soo laabatay ama la soo celiyay ama wixii hadii ama la soo wado hadii la arko dadkii la aamin lahaa oo Allahna waan la aamin kara oo hadii la arko in hadda wax gees marayaan hadda dadkii wada u sameynaysaa justification ama cudurdaar ay dhahaan dadka xool waa mid tuugo marka dawladdu inay arrintan aad warcad ka keento oo afkooda laga maqlo oo tallaabo ka qaado oo khaladaad wadankan jooga waxa la lahaa heads have to roll markii khalad wala madaxyaasha qaar waa inay faniinaan madaxyaal la arko way in la arko dad shaqo ku waayay ama dad loo xiray ama dad sharci wala tigtay la arko way hadii kale waxaan noqonaynaa in waxna la ka haysto oo dawladdu intii si loo haysto ka dar loo sii arko hadda anaga mas'uuliyadda iska leh وهاجاك داود يال halkan waa barnaamijkii dayaan ee Soomaalisad caaw halka ay nagu dabranaan doontaa intaan dib dambe u kulmi doono waxaan idinkaga tagnaa sida iyo aniga oo Xuseen Fiina iyo isku dibaradeyaasha iyo tafatirayaasha barnaamijka dayaan Cabdullaahi Saad Kuriye Cabdullaahi Xagalle waxaan idinkaga tagnaa sida iyo habeen wanaagsan